علمada ganacsatada aqoon-yahanada siyaasiyiinta dhalinyarada hooyooyinka dhammaan baaqa ay dirayaan oo ay u dirahayaan bulshaweynta Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan waxa weeyaan ilaahay ka cabso ilaahay ka cabso ilaahay ka cabso waxay u dirayaan fariin kale dadka maalin kasta ku hawlan inay dalkan iyo dadkan warxuma ka aruuriyaan oo ka gudbiyaan ilaa waxaan ognahay qaanuunkan marka la dejinayo warbixino khaldan oo wadanka laga gudbiyay oo hay'ado iyo afraad mushaar iyo dhaqaale ku qaata inay warxumada gudbiyaan ka bacdi ba qaanuunkan loo jideynaya oo wax lagu dhisaya waxa dhacay habeen iyo maalin dadka u taagan inay xumaan gudbiyaan oo hay'ado iyo dawlado u gudbiyaan si qaanuunkan oo kale iyo wax la mid ah dalkan loogu dabaqo waxaan leenahay waxaad soo gelaysaan ilaahay qowlkiisa subhanahu wa ta'ala إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون كوة شعل فاحشة إيا حمانتو إني كل حفافته ضدك أهل الإيمان كأه أو مؤمنين تأه إلهي وحو ليهي عذاب بيليهين أدونك iyo aakhira labadaba ilaahay waa og yahay idinku sema ogideen ma naqaan magacyadooda ma naqaan abtirsiyaalkooda laakiin waa waxaan ognahay inay mushaar ku qaadanayaan oo dhaqaale ku qaadanayaan dalkooda iyo dadkooda inay ka been sheegaan oo u gudbiyaan wadamo kale iyo hay'ado kale oo aan ka tarjumi karin maslaxada ummadan muslimiinta ah ee Soomaaliyeed ilaahay ka baqa oo faaxishada iyo xumaanta habeen iyo maalin aruurinaysaan ilaahay uga baqa qodobka labaad waxaan leenahay qofka dhibanaha ah oo dhibaata ay ku dhacday ama hal la dilo ama kufsi ha ku yimaado ama si kale ha loo dulmiyo waa inuu helaa xuquuqdiisa oo dhammaystiran shareecada islaamka ayuuna ku helayaa wa in ayada lagu siiya oo uu ku helaa wax alla wixii xuquuq oo ka maqan haday tahay hooyooyin haday tahay gabdho haday tahay qeyrkood oo rag iyo intaba ah xuquuqdooda oo dhammaystiran waa in loogu raadiyaa wadadaas ilaahay u jideeyay in xuquuqdooda ku doontaan qodobka saddexaad waxaan leenahay dadka dulmiga wada oo dhibka wada oo balaayada iyo sharta geysanayo ahlu sharta ah waa in waxa weeyaan tilaabada ku haboon ee sharciga islaamku uu u dhigay oo looga hortagi karo oo lagu xakameyn karo waa in sharciga islaamka la mariyaa oo cuquubada ay leeyihiin dadka geysanaya afcaasha xunxun ee kala duwan waa in sharciga islaamka la mariyaa haday tahay dil haday tahay xabsi haday tahay gacmo goyn haday tahay karbaash haday tahay dhagax in lagu dilo waxa weeyaan xuduudii shariicadu islaamku u dhigtay waa in loo marsiyaa ee aan meel kale loo leexin qodobka afraad waxaan leenahay qof kaste oo doonaya mas'uuliyad inuu qabto ama ha ahaato heer madaxweyne ama mid ka hoosaysa waxaad ogaataa dadkaani waa muslimiin islaamnimadooda ayaa ku filan waxa aad ku xukumaysid oo aad rabtid inaad qaanuun uga dhigtid oo ku socodsiisid ilaahay uga baq sharciga ilaahay buu ugu yaalaa diintooda islaamka ku xukun diintooda islaamka ku xukun waxa aad dejinaysid oo qaanuun ka dhigaysid waa inay soo maraan culummada islaamku waa inay eegaan si ay u qabtaan qodob kaste oo khaldan oo shariicada islaamka aan sal iyo raad ku lahayn
وإن النقدان علماء إسلامكو تلابك كستو لقاضة يدل دلكان وإن النقدان علماء كوا لغلات تشدو أو اللي يراهدو أرنك الدين إسلامكو محيك قرطا سيداسا أدوغونا مدحكو نقو قرطا كونا تشوغي قرطا ومدونا أي كوبت بادي قرطا وحان ليه يحي dadka iimaankoodii iyo diinkoodii intay halka iska dhigeen xishoodkoodii iyo akhlaaqdoodii ka tagay wada mugdiya qaaday ummadda Soomaaliyeed dhexdeeda wazan iyo qiimo kuma leh qabaa'isha ay ka soo jeedaan iyo ummadaha ay matalahayaan iyo deegaanada ay ka kala yimaadeen kulligeen waxaan ka soo horjeednaa qof kaste oo iimaankii iyo xishoodkii iyo akhlaaqdii ka doortay dadkiisa iyo dalkiisa ka tagay ee doonaya xil inuu qabto waa in xilka isaga ah iyo mas'uuliyadda iyaga ah waxa weeye aan loo ogolaanin wuxuu ku doonayaa inuu xil qabto ummadii uu khiyaanay oo diinkooda uu dhaawacay oo dastuur khaldan u jidaynayo oo uu rabo inuu baadil ku dhex socodsiiyo hadduu masna magacaagi iyo adiga deegaankaagi iyo dadkaaga xil uu ku raadinayo arinta iyada arin naxdin la weeye waxaan leenahay marnaba yaan loo ogolaan dadka noocaas ah inay bulshada dhexdeeda way ka takooran yihiin cod ay ku yeeshaan yaan loo ogolaanin waxaan leenahay ugu dambeyn walaalayaal dad muslimiin ayaan nahay islaamnimada ayaa nagu filan ayada ayaana deeqda ilaahay baa raali nooga ah waxaan isku bahaysanaynaa wax kaste oo xun oo kaste oo culimadu iftiimiyaan oo ay ka hadlaan waa inaad culimada ku garab istaagtaan waa inaad culimada ku garab istaagtaan meel kastana aad gaarsiisaan codkiina ilaahay subxaanahu wa ta'ala in dadkan iyo dalka ilaahay looga baqo oo halaaga iyo khatarta dadku ay la raadinayaan waxa weeyaan in laga badbaadiyo waa mas'uuliyad dhammaanteen ina saaran weeye إلهي إذن كيسا إنتاس أيام كسو قبقبين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.